حالدار هذا على نور قفنا واحد ودينا سدايا وجيدي وصعدكاagana aad u yar yahay say ku jireen ma waxa u soo baxday walaalkay guri firidiisa waxa iskaga miiraadinaya nolol maalmeedka filaysana صح waya bal aan wada fadhiisanaysaan noloshu waa cajiib ka waran marka adiga oo naafa ah socodkaaguna uu sidan u liito ay qasab kugu tahay inaad bannaanka u soo baxdo si aad u hesho wixii aad maanta quudan lahayd adiga iyo qoyskaaga kani waa Sayd Cali Amiin waa 30 sano jir ku nool marxaladii aan kor uga soo hadalnay waa aabba ay u joogto gabar aniga oo ka murugaysan saanqaadkiisa ayuu haddana ila wadaagay in sababta uu u soo baxay ay tahay raadinta $35 oo kirada guriga uu degan yahay ah waxa u soo baxay waana duruufta iska jirto waa fahmi kartaa guri kiridiis iyo waxyaabo kale oo nolol maalmeed ayaa raadinaya marka waa fahmi kartaa inuu qofka haday macduur yahay dadka agdooda maanaha sharaf weyn ma ka leho laakiin Allah subhanahu wa ta'ala agdiisa buu sharaf ka leeyahay marka taas darteed ayaa magaalada u soo aaday noloshay ma sha Allah dadka haday muslimiinta la iska soo dhaxgala wixii oo nolol maalmeed waa la iska helay laakiin kaliya waa qofka haday kaligiis yahayna waa fahmi kartaa oo qof oo waxa u soo diraayo oo saasan u jirin hal gabar ay joogda wax kale lahay soo ma jiraan magaalada la iska soo aaday kulay dadka muslimiinta magaalada iska joogan muslimiinta dhaxdooda laga nool yahay Sayd Cali cudurka dabeesha ayaa naafeeyay yaraantiisa xaaladiisa caafimaad iyo maalin joogiisa ayuu iga xog waramay cudurkan horta cudur oo mar dheer igu dhacay weeye laakiin alxamdulillah san ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aabudayay mararka qaar waa iska dhaca laakiin waqti gaboobka jiro ayaa gaar ahaanad aad u daranahay marka socodka maadaama aad ii dhibaayo waqtiga habeenkii la gaarayo ayaa aad ii dhibay socodku marka waa iska dulqaadanay yaani oo qof oo waa fahmi kartaa oo qof magaalada u soo dirsanay u haysanin marka dibkaas ayaa iska jira xogta Sayd Cali Amiin isaga ayaa faafahinta iyo xaaladiisa iyo noloshiisa nasiyay in Sayd Cali isaga iyo gabadhiisa iyo guriga kiradiisa iyo nolol maalmeedkiisa uu helo waxay ku xiran tahay in uu dhaqaaqo oo magaalada uu tago oo bulshada markaas ay caasimada ku nool oo wax weydiisto adigoo dareemi kara xaaladda uu ku sugan yahay socodkiisa marka waxaan rajeynaynaa inaan walaalkeen wada caawino Sayd Cali dad badan doonayay inay kula soo xiriiraan bal halkay kala soo xiriirayaan lambarkaaga la wadaag nambarkay haday la wadaago nambarkay waa furaha 7 eber 6 hal 7 hay 30 eber 6 30 iyo 2 ku celi marka furaha 7 30 eber 6 30 iyo 2 Sayd Cali Amiin waxa uu degan yahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir Abbas Xuseen Muuse Home Cable TV Muqdisho